بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دواده waraysi gaar ah oo aan la yeelanay siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda sidoo kale Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa uu kamid yahay hogaanka xisbiyada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi kusoo dhawow hoyga Banaadir TV. Thank you very much. Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu weydiin doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo isbedelada socda xilligan lagu guda jiro kala guurka. Cabdullaahi su'aasha ugu horeysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay maxaa ku qiimeyn kartaa xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan uu dalka hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Bismillah ma santahay waxa dhaca doona Ilaahay baa og waa qayb laakiin sida hadda dawladda hadda jirta ku wado haddaanay wax ka bedelin oo ay ku adkaysato doorasho aan loo dhamayn oo dalka dhan ka wada dhaci karin waxa arintaas waxay ku socotaa meel aan wanaagsaneyn ay ku socotaa waxaan safilayaa in caqligu tali doono oo iyaga laftirkooda marka dambe ay ogaan doonaan waxaas waxda ummadda Soomaaliyeed ka gudmi karaan inay noqonin damaca tirada badan oo kursigu tusayna ay ka noqon doonaan saasaan rajeynayaa. laakiin Cabdullaahi dad badan waxa ay doonayaan isla markaana rajeynayeen in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo dalka isla markaana laga gudbo doorashadii dadbaneed marka haddii aad tihiin xisbiyada siyaasadeed ee dalka maxaad ku diidantihiin in doorasho qof iyo cod dalka laga qabto was qofka koobaad oo doonayaan ahay xisbiga aan gudoomiyaha ka ahay waxa la aasaasay 2010kii aydan xisbiga Soomaaliya ka jirin xullo asaasana waxay in doorasho qof iyo cod wadanku gaaro xisbiguna u tartamo hogaanka dalka kuwa kale saaxiibadeena sidaas oo kale waay laakiin hadda waxa weeyaan adigu hadda maalinaan joognaa ma daan iraado habeenan joognaa dadku igama yeelayaan waa rabnaa one foodaan rabnaa in awoodda shacabka lagu celiyaan rabnaa in hadii Ilaahay ku idmaayo madaxda dalka heerarkeeda kala duwan dadku soo doortaan rabnaa in laga gudbo stage-ka loo haysto siyaasadda oo ama maamul goboleed amba oday dhaqan oo yaani ay ku soo jirtay muddada in laga gudban rabnaa laakiin tan hadda la wadaa one food maaha waxaan isku day Xasan say la tahayna waxa inaan shaqo karin waa ogyahay inuu sida loo murmaayo had la yiraahdo tani waa socoweysay bal odaga sanadka loogu daro soo tii kale ugu noqdo waxyaabo caynkaas oo extension ka dhex raadinayo tan inaan Xasan madax ku noqon waa ogyahay aan dalka san doorasho ka dhaca karin marka qaabkee doorasho qof iyo cod dalka u dhici kartaa aadaamisantiin waxay uga dhici kartaa sida dastuurku sheegayo wadanku dastuur uu leeyahay lagu heshiiyay oo bulshada ku heshiisay heshiis bulshada qodob kasta oo adduunyadan ku saabsan sida loo maamulayana dastuurka ay ku qoran tahay day doorasho tahay day adeeg dadweynaha tahay haddii ay tahay garsoorka marka dastuurka lagu laabto dadka Soomaalida dabcan marka run laga hadlo deexta la soo raaco hadda xilligan doorashada ka dhamaan sanadka deexta la soo raaco ma filayo in tooliska ay u baahan tahay doorasho one fooda iyo shaqada ay u baahan tahay yaani dhaqaalaha ay u baahan tahay hal sano hadda dhiman wax lagu gaari kara ma laakiin hadana waan bal israacsanana waa la isku khilaafsan yahay baarlamaankii laftirkiisu sharciyada la mariyay lama dhihi karo baarlamaan ay mareen oo la isku booqaayo oo la wada diidan qaar badan diidan yihiina xoog lagu marsiyo waa wada arkaynay marka waxaan is leeyahay haddii laga heshiiyo oo si consensus ah looga heshiiyo waa la qaban karaa doorasho one fooda laakiin hadda si hal koox doorasho wado waa lama mahadiyo inta badan adduunyadana waa la isku dilaaway waa aragtay dhig badan ku daatay wadamada dariska aad xusuustaa wax ka dhacay ilaa siyaasiyiinteeda qaar ka mid ah maxkamadaha adduunka loo gudbiyo la saaray dhimashada ka timid doorashadaas khilaaf ku jiray marka tan sidii ay noqon kartaa marka ummadda Soomaalida dib hal ku filan way soo martay wuuna haystaa marka mid kale ayaan loogu darin mudane Cabdullaahi Sheekh Xasan dad badan ayaa waxay isbarbar dhigayaan xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka hogaaminayay heshiis la xiriira doorasho qof iyo cod iyo xilligan Xasan Sheekh Maxamuud oo isna soo jeedinayo doorasho qof iyo cod marka ma la dhihi karaa waa wadadii Farmaajo oo Xasan Sheekh Maxamuud casharadii Farmaajo kuwa lamid ah ayuu haatan ku socdaa waxaad moodaa Xasan barasi dheer sababtoo wax weeyaan ninkaas wuxuu isku dayay dabcan extension oo baarlamaan u maray oo nidaam ku darsasho ama waqti dheereysasho
laakiin de xasan wuxuu leeyahay waa cid loo jooji ma taagan yahay asagu waa la dilaa qofta ka hortimaado marka qaar ku dara hadalka marka tana ka sii qatarsan kaas wuxuu ku ekaaneen process baarlamaankii marka waqti ka dhacay soo waqti ka dhacay isku day oo inay unda xukunka sii joogaan ku eg laakiin tan hadda xasan wada oo uu leeyahay hal degmo hadii ka dhacayso waa la qabanaya hal degmo madaxweyne lagu ma noqon karo laakiin doorashooyin qof iyo coda qaybo kamid ah dalka hore ay dhaceen sida Somaliland Puntland oo kale marka maxay yihiin farqiga u dhaxeeya doorashooyinkii ka dhacay maamuladaasi iyo doorashada haatan oo xasan sheekh horta baltan Puntland noo kaaday Puntland hadda madaxweynaha lagu ma soo dooran qof iyo coda wax lagu soo doortay nidaamka qabaliga ahaa waa isku dayaan runtii dadka Puntland degan doorashooyinkaas laakiin dafil Soomaaliya caqabad ku noqotay waad xusuustaa madaxweynuhu lama qaban karo one man one vote Puntland hadii laga qabtana Puntland waa burburaysa marka taa wuxuu ahayd xasan diiday tan Somaliland waadan ka isoo oo Somaliland waa dal muddo dheer dimuqraadiyad ku dhaqmayay guddi doorasho isku raacsan yihiin leh maxkamadda dastuuriga ahay leh imkaaniyaadka loo baahnaa doorasho markii doorashada dadweynaha la qabanayo dhan u dhan yihiin mucaarad iyo muxaafad ay wada dhisteen guddiga doorashada cidna aanay dhaleel ka qabin hadda halkan waxa jooga madaxtooyadii shaqaalay madaxtooyada un baa la riwaa guddiga doorashada cid laga talagelinayo ma jirto toosaaba loo sheegay waxa la yiri waa sidaan lagu wadaya marka wax kasta loo dhamayno dhibaatay keenayaan marka waa ka duwan tahay Somaliland doorasho sax ka dhacda markan kale aan ma tantii ka horeysa xataa inkastoo ay la Turkiga soo jiitantay ogeedo murano badan dhacaan oo 2 sano ku darsoonto sida la isu jiijiiday haddana waa ugu hambalyeynaa si nabad doorashada inay ku qabsadeen dadka deegaanaas degan waxaan doonaynaa waa sidaas oo kale in dadka saamileyda yani ay qasab tahay inay wax ka go'aamiyaan sida dalka loo wada sida maamul goboleedyada kale amba axsaabta in laga qayb galiyo marka kadib waxa la dhigi karaa wixii waa wax oo boqol ilaahay u baahay laakiin wax isu dhow ka iman kara marka laakiin sida hadda lagu wado oo ah qof loo joojima waana la wadaya anagaana guddiga anagaale doorashada anagaale dhagayna darad madaxweyne maro baarlamaanka hadlay wuxuu ku daray cajiib ahayd xataa qalabka soo gadhabo oo doorashada ku qabsan lahaa marka nin qalabkiisa soo gatay guddigiisa diyaarsaday wixii isku dubaritay Maxamed Rajab iyo Bondare iyo meelaha inuu doorasho ku qabsado rabo doorasho ma noqonayso haddii loola jeedo deegaanka golaha deegaanka absolutely waa qabsoon kartaa xamar doorasho waa nabad dadka xaq ay u leeyihiin madaxda soo doorteen laakiin ayadana in loo socon waa kiis timaana ka hor magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir marka nin shalay gudoomiyaha gobol magacaabay kuma tashano in maayir soo doorto uu keeno marka waa iska rawaayad caadi ah dadka loo dhigay marka siyaasiyiinta ama asxaabta dalka haddii xasan sheekh maxamuud uu ku adkaysto oo loo joojin maayo maxaa ka dhalan kara markaas oo qorsheysto inuu furiyo doorasho qof iyo coda waxa ka dhalanaysa wax dhibaato ma dhacayaan insha Allah waxa ka dhalanaysa xisbigiisii oo inta la kala qaybiyay qaybna ruwaay sanduuq dhigatay qaybna ay Bondare dhigatay marka madaxweynaha iyo tiimkiisa doorasho sameystaa ka dhalanaysa dhinaca kale mudane Cabdullaahi Sheekh Xasan sidee u aragtaa wax ka bedelka dastuurka hadda waxa furmay kalfadhigii baarlamaanka waxaan la sheegay in lagu dhameystirayo qodobadii waxyaabihii ka dhinaa marka isbedelka dastuurka sidee u aragtaa horta dastuurka waan qanaa waa ka soo shaqeeyay guddidiisana waa la soo shaqeeyay guud ahaan sidaba dastuurka waxa lagu bedeli karaa isla ogol in shan maamul goboleed jirta shanta maamul goboleed qodobada qaar waxa ku qoran dastuurka in xataa isla dastuurka aanu xal karin oo in laga heshiiyo ay u baahan yihiin oo consensus kaliya lagu bedeli karo baarlamaan xataa uusan kaligiis bedeli karin heshiis siyaasadeed ay u baahan yihiin qodobada qaar dastuurka ku qoran ayaa saas sheegay marka wali waa koox dastuurka iyadu leh guddigeeda doorashada iyadu sameysatay waxay soo sheegtay soo gadatay kombiyuutarro ay doorasho ku qabsato wixii oo dhan waxa waaye waa howlan dhammaan tar anigu qabtameed waxa dhajir dhammaan howlada xasan oo isku subsaday oo istusay oo si ra'iisul wasaaraha hadda ka hor sheegay madaxweynuhu 2025 waa ka guuro 2060 uu degan marka reeyal 2060 lagu degan yahay lagu wadaa waxa dad soo jeeda waxa ka shaqeey karaan Cabdullaahi haddii aad tahay gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo sidoo kale asxaabta kale siyaasadeed ee dalka
waxyaabaha aad tabanaysaan ama qaladaadka haddana arkaysaan ma gudbiseen beesha caalamka oo inta badan bixisa dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya? may beesha caalamka anagu lama shaqeynay ba madaxumanayna dadka Soomaaliya u gudbinay una sheegnay waxa jira kuna qancanay iyaguna qabadood arkayso hadda magaaladan waad joogtaan hadda dhaxmartaan waan dhageystaa yani codka dadweynaha mikrofoonka la dhaxmar boqolkiiba hal mar dhamo waxa xasan wada cod rabtaa marka dadka anagu dadka Soomaalida aan la hadalno oo u sheegno oo waxa la wada sidii yihiin dhibaatooyinka imaad doona aan uga dignaan leenahay beesha caalamka anaga wax noo sheegin wax aan u sheegno naga khusay arrimaha Soomaaliya kala ma hadalnaba laakiin inta badan xubnaha beesha caalamka ama wakiilka kusimaha wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa inta badan u kala dab qaadaan siyaasiyiinta dalka wala kulanteen oo isdhaafateen aragti la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka halka lama gaarin wali dawladdu maandeeda haysataa wali sanada u dhiman xilli ay wax ku soo xikaray haysataa marka ay gaarto halkaas oo in ay sidii ku wado يعني sida hadda ay ku wado ay ku sii adkaysato dadaba meel kasta qosayso iyo dad saaxiibada Soomaaliya kaalmeeya abin aaniga dhaqaalahaanba arrinta ayada dan u gaaraysa laakiin hadda wali dawladdu maandeeda haysataa dawladdu ayadana hadda wadanka mas'uulka ah waxda khaldanta iyadii aan uga digaynaa horta marka hore beesha caalamka wax naga hadlaynay wada wax qarribaysan ha qarribin way naga hadlaabayaan leena diidana maalinkaas aan arki doonaa laakiin dhinaca kale waxaa jira dadaalo badan oo ay sameysay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca amniga ka talaabooyinka ay qaaday dowladda sida u aragtaan waajib sarreey dowladda iyada maandeedu haysata inay wadanka amnigiisa ka shaqeyso iyada budget ku qaadata iyada loo dhaarshay inkastoo hadda aanan arag yani dagaaladii lagu qaaday nimankii shabaabka aad moodo markii dagaalkan siyaasaddu yimid oo xasan uu ka fikiray kursiga mar labaad soo ku heli lahaa xalaali xaran oo ka soo wada noqday dagaaladaas oo xagga ciidan u dir raas kamboon u dir geeda u dir inta ku jira nimankii xamar soo kulaalayaan oo hadda meesha la isku tahay xamar afkiisa oo wali balcad iyo jowhar soo gudbi karin oo jowhar bahalkii afgooye iyo balcad soo gudbi karin oo nimankii ay halkaas joogaan haddana dawladdu waxay qabatay oo ku mahadsan tahay waana wixii loo doortay waxay qaboweysana waa ku dhiirigelinayna inay qabato laakiin marka hore dawladda dardar ay ku socotay oo gobollo badan iyo deegaano badan la xoreeyay laakiin haatan waxaa moodaa in kooxihii al-shabaab ay dib u soo noqonayaan taasi marka waxa keenaya hada xasan sidaba qofka bilaadanka waa jacala rujul min qalbin ayad quraana ilaahay wax ku leeyahay qofna ma inaasin laba qalbi lama gelin qofku hal shay ka shaqeey kara intuu miiska saarto sida maanta dad meel inaad aad go'aansato meeshaas aqligaaga iyo maskaxdaadu jira markii laga rabay inuu sii dhameystir nimanka hore u sii wado iyo wuxuu arkay kursiga waqtigu sii yaraanayo marka juhdigii oo dhan haday ciidan tahay iyo haday lacag tahay iyo haday wax qabad kale tahaba yani wax aan ninka hortii jira helin asagoo qudhisaada ka hor uusan helin ayuu wixii la qaban kara ku dhuminaya xasada ay muuqato sababtoo tahay inuu nimanka la dagaalo waa awooda meel fiican ay gaarsiin runtii sanadkii hore laakiin midan hadda uu ku mashquulsan yahay oo dagaalka uga mashquulay asagana kuma soo noqon doono madaxweyne nimankuna hadda wixii yaraayo qabi ka baabi'in yani wixii yarka ahayo lagu sheegi lahaa madaxweyne xilliga jooga inta qabta la dheelha ayaa dib uga baaba'ay intaas uu ka faa'iido doonaya dad badan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay ku eedeynayaan boob ka jira magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xiran arintaas maxaad kala socotaan haddii aad tihiin xisbiyada in badan ka hadalna arintaas waana ka dignaa waliba dadka hantidooda waxaas gelinaya طبعا دولته dhulka mas'uul ka tahay si sharci ah laakiin uga tahay way gada kartaa laakiin waa in si sharci ah ku gada waa in lacagta laga bixinayo oo la qaadayo hadii ba laga maarmi waayo saxta inkastoo aan ognahay in laga maarweyn oo wasaaradda ayagu wasaaradda kala kor saaran wasaaradda dowladda la gaday oo hay'ado badan oo ayagu aan meel ay ku shaqeeyaan lahayn meel shay ay lahaayeen la gaday haddana hadiiba ay sameynayso waxa iskale ummadda Soomaalida iskale sobankan inoo madaxtooyada fadhida Xamza iyo xafiiska Xamza xafiiska Xasan ka shaqeey hantidan ma leh midka dhalan doonay midka dhintay midka dhashay jooga leh hatta haday gadayso waa sida sifaha sharcigu ogol yahay oo ah inay naadiso in loo tartamo dabeetana lacagta bangiga dhexe ummadda ka dhaxay lagu shubo Xasan markuu xukunka ka dhaco waxa la ogaan doonaa cid jidkaas marto wax ku gadatana wax roo saf garoobi doonaa cidda wax aan Xasan ka lahayn Xasan ka gadatay ilaan dhulka wadiga marka ganacsatada lagu leeyahay Xasan dhulka iyagada ku leeyahay kaama leh
عدة حسن العكسي سنة العكس حسن يقضون دونتا عدة مرسيسي شرع وسيد الشيء يبقى قرن كنا دواء وبد بعد دونتا أنت ده أنت وسيد شرع اللي وجدين نقض دونتا dhawaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna magaalada muqdisho maxamed axmed amiir dad badanna waxay u arkaan in magacaabidiisa ay salka ku hayso qorshe uu damacsiyaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah in shakhsiyaad lagu wareejiyo dhulka u dhaxeeya muqdisho iyo warshiiq marka arrimahaas maxaad kala socotaan anigu dataa ma xaqiijin karo laakiin haddii ay jirto dhulka u dhaxeeya muqdisho iyo shabeellada dhexe yani muqdisho hadii laga baxo waxa la galaa shabeellada dhexe hirshabeelle la galaya hirshabeellena waxay la tahay meesha maayarka loo magacaabay kamid ma ayada maayarka la leh marka arintaas dhulkaas iyo mustaqbalkiisa awalan dadka lahaa leh in lagala macaamilo qof xooga kartaa ma jirto haddii nidaam dowlad la yiraahdo dowladda hirshabeelle dhulkaas hoos tagaa marka ma filayo maamulka gobolka banaadir inuu access u leeyahay degmada warshiq iyo tan cadale inuu maamulo inuu dhulka bixiyo maamulkaas waxaa iskale hirshabeelle iskale definitely taas waa wadanku federaal kuushi marka ismali sidaas inay jirto ma qabo mudan cabdullaahi sheekh xasan haddii aan dib ugu noqono su'aalaheena arrimaha doorashooyinka waxaan ku weydiinayaa doorasho qof iyo codad ma dhici kartaa iyadoo sidoo kale ay maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland waa dad badan oo dhowr milyan ama 10 milyan kaligood ah haddii qof Soomaaliya loo diidayo caafimaad qaba fursad loo sii waayo oo inuu la doorto ama wax doorto leh xaq u leh haddii loo diido ayba baadil yihiin taas kama hadlayno ma macquulba ma taas ma ogtahay dalka haddii gobolka banaadir kaliya doorasho ka dhacayso waa wax kale ee gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waa la yeeli karaa laakiin jamhuuriyadda doorasho ka dhacday 10 gobol ku dhawaadna waa maqan tahay taas ma inaan legitimacy noqonayn qolada wadana waa ogtahay qof kastana waa ogtahay waa waqti dheeraysa lagu raadinayaa waxaas qaybihii dambe ee barnaamijka ayaa soo gaarnay su'aasha ugu dambaysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay maxaa markasta sababa dhaqaalo xumo ka dhacda dalka gaar ahaan magaalada muqdisho xilligan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dalka hogaaminayo wallahi horta guud ahaan wadan iska burbur ka soo kabtay oo iska tabcaan waaye dabcan waxaan isleeyahay dagaalada la galay oo shabaabka iyo deegaanadii iyo isbaarooyinka wada yaalla wadooyinka iyo dowladda iyo dukaan kasta oo iyadu gaari karto 9 magac oo kala gedisan lacag oo qaadaysa ganacsato badan suuqa ka baxday iska xireen ganacsiga sida arkayna suuqyada waaweynaa waxa canshuurtaas aan loo meel dayin oo boobka u badan oo si sharci ah baarlamaanka la marsiiyay ku yaryihiin ama aan baxtaa ku jiro oo leeyahay dukaanka xataa nabadgelyadiisa inuu soo dambi lahayn lacag lagu rabaa iyo muxuu ahayto canshuur dadban canshuur toos iyo qof aan amnigeeda la sugi karin oo meelaha qaarkood kaamirooyinkii laga dartoor loo gubay dukaankoodii dadka qaar badan oo ganacsada ka mid ah soo ka baxaan cariirka dawladdu saartay ayaa kow ka ah marka laga soo tago guud ahaan wadanka iyo xaaladiisa magaalada muqdisho laakiin waxa ka jira qayb badan oo ka mid ah dawladda mas'uulka ah marka ma dhihi karaa in lacagihii shacabka ama lacagihii la isdhaafsanayay ayaa waxa ay jeeb ku galeen shakhsiyaad gaar ah ama rag siyaasiyiin oo gaar ah dabcan hada qayb waa ka noqon karaan laakiin dhaqaale xumadu mid guud waaye waa jirtaa runtii dadkii ganacsatada oo gaar ahaan dhulalka ka ganacsan jiray oo dadka xawar xereerihiisa iyo dhismooyinka ka samaysan jiray isteedida dhulalka dhisa jiray in goof xamar ka heleen xamara goof laga dhex helay oo xamar weyna goof laga dhex helay iyo Boondheer iyo Cabdicasiis goof dawladda ka dhex furtay marka lacagtina iyagu un baa la siiyaa shacab kale wax ma gato marka qayb ka tahay runtii circulationka ku yimid lacagta socodkeeda in goofta xamar dhexdeeda ka dilaacday lacagtii laga bixiyana shakhsiyaad gaar ah qaateen isaasku lacagta ku soo noqoysay wareegga dadka ku dhex mar jirtay oo laba gacmood kale ay ku arurtay marka ugu dambeyn waxa uu soo jeedi lahaa shacabka Soomaaliyeed si xal looga helo dhibaatada ka jirta dalka shacabka Soomaaliyeed horta marka hore in isku xiraadaan waxa loo socdaa oo ayaga waxa hantidooda la boobaha waa iyaga waxa shabaab dila waa iyaga waxa yaani badoodii si sharci darro kalluunkooda loo qaadana waa iyaga marka hada midnimo in la muujiyo oo heblow nama dirqi kartid adan sharci wadan la yiraahdo la iska diido burcada dhinac walba ay tahaba
kuwan shabaabka ayaguna sidoo kale handadayo qofka oo meelaha aysan ma kara xataa tala waxaasina loo dhagan nuglaanin dadku ay u hoggaansamaan wixii sharciyan ay diidaan ugu baaqa sharci darra inay diidaan ugu baaqayaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda fursadan qaaliga ah oo waqtigiisa qayb ka ah oo uu siiyay telefishinka Hoyga Banaadir daawadayaal aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Cabdulaahi Sheekh Xasan dhanka farsamada iyo qaabeynta barnaamijka waa Maxamed Axmed Xasan Yuulka iyo Cabdiraxmaan Shiine iyo anigoo ah Aweys Fodi oo idinku dhaafaya daawadayaal intaas iyo nabadgelyo. Masuk.